xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabey oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland kana mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sharci darro ku tilmaamay xubinimada komishanka doorashooyinka ee Cabdirashiid Riyaraac waxaana uu sidoo kale u jawaabay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Somaliland. waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob oo qura waana soo gaabinaya insha Allah waxa weeye labada qodob laba nin oo xildhibaan oo saaxiibnahay oo la yiraahdo xildhibaan Cabdullaahi Blaaki iyo xildhibaan Saciid Cilmi Rooble oo ka hadlay dhacdadii maalintii dhaweyto lagu ansixinay komishanka doorashooyinka qaranka. taasi waa qodob talabaadna waxay noqon doontaa inaan fariin madaxweynaha Musabix Cabdi aan halkan uga diro. horta ugu horeyn maalintii dhaweyd hadda waa ka wada dhageysantiin oo ku noqon mayno sidii komishanka loo ansixiyay. waxaan dhageysanayay Cabdullaahi Blaaki xildhibaan Cabdullaahi Blaaki oo leh waxaanu ka soo saaraynaa xisbiyada mucaaradka mooshin. horta Cabdullaahi Blaaki isaga in mooshin laga soo saaro baahan sababtu waxa weeye aniga wuxuu igu yiri Cabdullaahi markii loo soo gudbiyay komishanka qaranka oo runtii markii sharciga la eegayo xubin uu farta lagu godayay ninka la yiraahdo Cabdirashiid Riyaraac wuxuu igu yiri war ninkaasi ilaahay baa cadaaba hadduu soo dhaafo aniga ayaa soo sheegaya inuu sharci darro iyo xisbi yahay ninkaasi. waxa ku xigtay inuu Cabdullaahi soo saxeexo oo xildhibaanadii kalena ka soo saxeexo inuu Cabdirashiid Riyaraac buuxiyay jagada komishanka qaranka. Cabdirashiid Riyaraac horta waa nin muwaadin Somaliland oo xaq u leh xilalka Somaliland ka jira. wuxuu xaq u leeyahay in laga dhigo xilalka ay baarlamaanku ansixiyaan sida wasiir sida hay'adaha qaranka. waa arki lahayd anagoo gacanta u taagayna laakiin komishanku wuu ka duwan yahay. komishanku waa judge, komishanku waa garsoore, komishanku waa wax u garnaqaya axsaabta qaranka oo tartamaya. sidaa awgeed xeerna wuu leeyahay, xeerkuna wuu sheegaya qofka loo baahan yahay. bal Cabdullaahi xildhibaanka waxaan weydiinayaa madaxweyne Daahir Riyaale waxa uu lagu soo celiyay bariga anagu xisbiga mucaaradka kulmiya Ilhaan Maxamed Jaamac muxuu ku soo eedeeyay wax xubin xisbiga ku soo eedeeyay. madaxweyne Siilaanyo wuxuu soo celiyay Dr. Maxamed Cismaan Fadal wuxuu ku soo eedeeyay waa xubin kamida xisbi. madaxweynaha Musabix Cabdi wuxuu celiyay xubintii guurtiidu soo magacooday markii hore oo yiri waxa uu taagnaa meel xisbiga wadani lagu soo dhaweynayay. marka sidaa lagu celiyay maxay ahayd xubnahaas oo dhan. bal waxaad ii sheegtaa Saciid Cilmi Cabdullaahi ninka sidaa Cabdirashiid Riyaraac oo leeyay ee TV ka soo muuqday ee komishan noqday ee sidaa uu oleeyay meel walba ka campaign gareeyay ee komishan noqday bal ii sheeg ma jirto weey. waxa weeye Cabdirashiid xilalka kale waa loo ogoliyay kani waa garsoore dadkii uu u garnaqayay ayaan ogolay. anigu dadka kale ee komishanka way buuxiyeen shuruudihii. runtii marka laga hadlayo inanta waxay ahayd wayna sharaf badan runtii qofka intiisa waa la sheegaa waa marwo sharaf badan oo ammaan mudan runtii. heshiiska ay xisbiyadu isla gaareen waxaan hayno iyada xeerka ku buuxinayna ma jirto. heshiiskaana waa laga hadli karaa inkastoo leaderku yahay inuu commitmentka uu galay iyo ballanqaadka uu galay uu fuliyo laakiin inantaasi haddana wax xeerku u diidayo oo heshiiska ahayn may lahayn. qofka muranka uu ka taagnaa maxay ahayd Cabdirashiid Riyaraac. Saciid Cilmi Rooble waxa uu ku eedeeyay isaguna sharxii ku xigeenka ee wadani inuu jabhada asaasayo. horta Saciid Cilmi waa sheegaya 2008 ayaan filayaa inay ahayd komishankii bedelay cadam iyo markii la magacaabay 3 xubnood ayaa la yiri ma buuxinayaan xubinnimada. nin nine looran jiray baan ka garayaa reer bariga Sanaaga oday kale ka tirsanaa gobolka nin macallin ahaan jiray ka tirsanaa gobolka Awdal in Maxamed Yuusuf looran jiray. xildhibaan Saciid Cilmi Rooble isagoo kamida gudida arrimaha gudaha ayaa wuxuu yiri saddexdaan nin uma qalmaan inay komishan noqdaan. isaga xeerka akhriyay oo dacdii bay dhaafeen. isagaana gudoomiyay gudida ahaa markaa
markii uu akhriyey ee uu yidhi saddexdaan inuma qalmaanu saddexdii magace sheegay haddana wuxuu u codeeyey kuwii yidhi xilka may buuxin mid ka mida buu u codeeyey farta u taagay kaasaa mooshin u baahantay horta ninka intuu halkaa stage ka akhriyey uu baarlamaanka ka hor akhriyey uu yidhi ninkaasi ma buuxin shuruudihii haddana maxay ahayd to yidhiin haddana u codeeyey isagaa mooshin u baahan sida cilmina waa taa waxaan labadaa saaxiib kula dardaarmi lahaa madaxweynaha inay u nasteexeeyaan madaxweynaha inay runta u sheegaan madaxweynuhu waxay ka khaldamaa dadkao dhan buu ka khaldamaya waa in loo sheegaa haddii kale waxa la nin baa beri isagoo la eryanayo ay dadkii deegaan ku nool eryanayaan buu guri fooqoo dheer fuulay kanoo kalaa nin baa ka daba fuulo markaasuu maxaad xaggan ka doonta xaggii sare saba fuushan maasuu halkan amaan boqor ka noqonaya hadda waa xaggii sare ninkii baa ku yidhi waayo dhulkaa u soo degin ilaa dadkii kooriyanayaa joogeen bal imika markaad ansixisay commission yaa waxaad ugu tala gashay inay fooqa wan xagga sare fuushanaadaan ila commissionku siduu u shaqeeyaa waxa weeyaan wuxuu isugu yeedhayaa xusbiyada code of conduct buu ku shaqeeyaa go'aanba ma gaadhay ilaa ay saddexda xusbi ka wada shaqeeyaan xubnay u dirtaa saddexda xusbi ninka sidaa u maslaxaya commissionkii dee laba mid aha qof aad iska ansixisay qof aad intaad fooq saarta taadoo dhammo hawshaada qabsana maaha waa qof ku shaqaynaya wada shaqayn dee bal cirkaa u dhig imika waaye sanduuqa waxa tahdaa haddaba qaba doorasho ila raggii u qaban lahaa baad diiday ragguu jajka u noqon lahaa baad diiday garnaqeenna dhaqanka waa garanaysaan waa la duraa qofka sharcina ninkan waa la raaciyey taana horta intaasaan kaga bixi lahaa waxaa timi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muse biix cabdi madaxweyne dadkan reer somaliland 3 milyan iyo marka horta adigaa madaxweyne u ah marka la qeexayooyin leadership quality wax la yidhaahdo ama hogaamiyaha qeexida badan baa jira laakiin anigu nin la yidhaahdo John Maxwell baan u jecelay qeexidiisa wuxuu dhahaa a leader is who knows the way, goes the way and shows the way. hogaamiyuhu waxa weeye ka garanaya waddada uu marayo ee isla markaana waddadii qaada ee isla markaana dadkii uu hogaaminaya tusa ay daba galaan madaxweyne waddadan aynu haynaa bal imika xaggee inala gelaysaa 2 sannadood waxaynu ku murmaynay commission 2 sannadood markaynu commissionkii ka maraynay 2 sannadood markaynu commissionkii marayno ayaa haddana mid cusub oo aan garanayn waqti uu dhammaan doono oo aanan qiyaasi karayn waxa uu ku damayn doono ayaa haddana imika bilowday waa lagu sheegay markii aad soo magacaabaysay international community-ga kuu sheegay xisbiyada mucaaradka baa kuu sheegay war qof xubin ka dhex muuqda xooga ku marsiinin golaha ayaa lagu yidhi luru bareer baad dee ma wanaagsana 2 sanaad joogtaa madaxweyne bal 2 sano taariikhda dib ugu noqda madaxweynayaashii soo hore ka horreeyey waxay qabteen madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Ayna Xasan Sharax ka waraabiye 2 sano markuu joogay waddanka civil war baa ka dhacay isagii madaxweynihii labaad Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Laawna xaristay civil war oo jabaadu markii dalkii qabsadaan hadii jeer waa iska dhaca 2 sano markuu marayay oo boora meel lagu shirayaa buu ka degay taladiiba uu ku wareejiyay dalka wuxuu war balwada hadii xal noqonayso wuu xaliyay dhibaatadii markaa taagneed waliba taariikhdu waxa weeye waxay qoraysaa Cabdiraxmaan baawarka uu wareejiyay waxay ahayd ururkii asrama waddankan qabsaday ayaa taladii halkaa ku wareejiyay shacbigii reer Soomaaliland ku wareejiyay waa taariikh qoran ururkii asrama halkaas ku wareejiyay talada Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal baa yimid civil war baa isna qabsay ilaahay u naxariistay sidoo xaliyay dadka arkaysan oo 500 oo technikiisa dhex qaadayso yaa ayuu negotiations galay uu dhameeyay markaas waliba isaga dib loo doortay waa taariikh iyo historiga oo dhacdooyinka Soomaaliland soo mara qoran isaguna saasuu ku xaliyay dhibaatadii jirtay shirkiisa daaqligu ah madaxweynaha imiko inkastoo systemka markaa ka saaray madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal markuu wada hadallada galiyay aan filayn aan u baahnayn markaa ganacsi badan iyo wax badan uu doonayay madaxweynahaas inuu solution iyo xal gaadho madaxweynihii saddexaad daahir yaala yimid 2 sano markuu marayay doorashadii deegaanka uu qabtay taayadii baarlamaankana uu qabtay within 2 years within 3 years gudahood bay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal lahayd within 2 years bay ahayd Cabdiraxmaan Cali Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan yaa yimid 2 sano markuu marayay 2010 buu yimid 2002 doorashadii golaha deegaanka uu qabtay
xisbiyadiina uu furay waa 2 sano waa madaxweynihii horreeyay ee 2 sano isagoo halkiisii taagan iminka aan waxba ku dhaqaaqin 2 sano muran kalena bilaabmo goor dhammaan doonaa la garay madaxweynuhu ama liidarka waxa looga baahan yahay common sense kan dadka caadiga maaha waxa looga baahan yahay inuu si weyn u fikiro bal waxaad u fiirsataa 3 iyo 4 jirkan 105 milyan xukuumaad Abaay Axmed sanad iyo badh buu marayaa Nobel Peace Prize buu ku guuleystay wuxuu afjaray 20 sano colaad socotay wuxuu saamaxay oo la fiyo jabhadii ka soo horjeeday oo maanta xisbi furanaya oo doonaya inay talada waddanka ka qayb galaan ya ma oranin oo la saamixi maayo dagaalay galeen anarka ay odayaal maalin dhaweyd madaxweynaha caare kala hadlaya oo la meereysanayo nin maalin dhaweyd ka helay kelmadu yiro madaxweynaha nala meereysan uu meereysana Abaay Axmed oo lafna uu sii daayay oo kuwa isu sharaxayaba wuxuu xakamaa 105 milyan oo kala diina oo 80 qowmiyadooda 3 milyan oo ilmaadeer madaxweyne cidna ka aqbali mayso waan u talin kari waay iyo khilaafkooda dhameyn kari waay oo marxalad aad ku qabsatay kula wareegtay degan cidna ka aqbali mayso u fikir sida leaderska waaweyn ayaa loo fikiraa inka la yidhaaho waxaad moodaa khilaafka gudaheennu inuu inaga xumaynayo aragtida guud ee Somaliland dhalinyaradu waxaad moodaa imika markay ka faalloonayso inay yaraatay wixii loo sii nationalismka aan leeyahay baan arkay maayarka sulteelka oo yiri bisad maxay tahay waxa ka nasiib badan tahay qofka maxay tahay jooga xamal hal la oran kara deeyo caadi sidoo si kastaba ha ku yimaadeen laakiin waxaan ka hadlayaa social media reaction kii ka dhashay ee dhalinyaradu ka celinaysay 80% ku dhawaad waxay difaacayeen Muqdisho waa change madaxweyne waa change dadkeenii isbedel baa ku dhacaya dawladii ka hortagi lahayd baa lagaaga baahan yahay dawladda Soomaaliya February baan u maleynayaa inay timi 9keedii malaha la doortay farmaajo 2017 waa 2 sano iyo wax yar ma taqaan miisaaniyadda ugu yimaadeen 160 milyan oo dollar bay ugu yimaadeen 460 milyan bay imkaan saxiyeen in ku dhow 300% ay miisaaniyadda Soomaaliya kordhay ya labadan sano inaga miisaaniyadda inta kordhay ma taqaanaa 2 trillion 300 billion 100 million by 19 tii horena 1 trillion 800 billion something by only 500 million baa u dhaxay 8% bay korodhay 2018 iyo 2019 ay miisaaniyadda Soomaaliland korodhay halka miisaaniyadda Soomaaliya ay labada sano korodhay in u dhow 300% politically buu korayaa waddankii noo dhaweyn Charkana military buu korayaa adiga arkay sidoo galay maamul goboleedyada dhaqaale ahaan buu korayaa ya dawladii waxa soo dhan u fiirsan lahayd iska daafici lahayd waxay ku mashquulsan tahay xisbiga u jawaab iyo hebel u jawaab wasiirka warfaafinta arkaysaa oo xisbiga u jawaabaya waa kii u jawaabi lahaa Mareykanka iyo Talyaaniga iyo Ingiriiska waxaad arkaysaa wasiiradii oo xisbiyada mucaaradka u maxay tahay u jawaabaya de maaha jawaabtu maaha de local de laguma talagelin inaad dadka istiraatiijiga iyo dawladaha diidan madax banaanideena inaad la tartanta weey oo aad maxay haytay aad xoog saarto weey ee sida u koraysa habeen walba waynu daawanaayo international forums iyo international institutions bay ka qodbadeenayaan iyagoo iibinaya waddanka la yiraahdo Soomaaliya oo ogeydeen nabadgelyo darrada ka jirta dunidii waxay ka dhaadhiciyaan iminka oo aad arkaysaa oo ay dunidii oo dhan kula shaqeynaysaa waxa weeyaan waxa iibiyay golaha wasiirada iyo madaxweynaha Soomaaliya iibiyay innagana internal conflict ama khilaaf xisbiyada ay bay labadii sanaba aynu ku mashquulsan marka halka waxaad arkaysaa degaab weyn baa soo baxaya waynu isdhaafayna hogaamiyuhu inuu arrimaha la socdaaba loo baahay wasiir warfaafineedo iyo wasiir xisbiye mucaarada uu jawaabaya de looma diran xisbigu daa uu jawaabo akhirto laakiin wasiir runay uu cadiyay uu madowiyay bidaar buu leeyahay de waxa si ma haboona marka waxa weey
tiimka ka dhisan Soomaaliya hadii sheegaysa lagu xushay team intellectual waa team lagu African Development Bank UN international NGOs dulamat ahaan jiray oo aqoon yahanaa wana kuwa kiciyay 2 years inagana teamkeenu waxa la oranayaa mid baa oranaya wadani waa federaal teamkii uu soo gelinayaa lambar 10 baa uu ka ciyaarsiinaya mid kala oranaya boorame waxeedii way haysataa lambar 9 baa uu ka ciyaarsiinaya mid baa waxa oranaya wax iska loo kala waaba la dalacsiinaya maxaa iska hor imanaya marka team sidaa u dhisano intellectual iyo team lagu soo xulay dal loo kala ho dadka u caayay lagu soo xulay labadaa team maxay soo noqonayaan marka waxay noqonayaan Brazil iyo team Hargeysa ka dhisan oo wada ciyaaraya ay noqonayaan marka in 16 gool ay naga dhaliyaa waxay noqonaysaa wax fudud bay noqonaysaa waxaan oran lahaa madaxweyne war arrinka dib u eeg talada wanaagsan qaado dadka la taliyana madaxweynaha runta uu sheegaano waxa loo baahan yahay halka sidii looga dhaqaaqi lahaa ee wax weyn loo higsan lahaa talooyinka qiimaha leh iyo leadership skills baa madaxweynaha looga baahan yahay iyo inaanu soo dadka shacabka u fikrin talaabooyinka Nobel Peace Prize lagu qaadanayo inuu galo laakiin haddaad madaxweyne ka hesho xabeeb buu leeyahay xabad baa halkan kaga dhacday aad u qorsasho ka hesho iyo khudbadaha noocaas taasi ka turjumayso waxa dadka doonayo waxaan oran lahaa dhalinyaradana iyo dadka reer Soomaaliland laga midho dhalinaya horta Soomaaliland inuu ka midho dhalinayo haquusanina madaxweynaha waxaan oran lahaa ku gabagabayn lahaa madaxweyne adaa dalka madaxweynaha waxa la nin baa geel badan inta la soo xireyay buu caana ka dhargay masubu hadana ilaa ya mid baa ku yiri qofka caana buu ka dhargay haw ka qarqaraya madaxweyne xaggaad nabadgelyada dalka abuuraysa khilaafka maxaad ku falaysaa adaaba dalka madaxweyne ka adaaba dalka haysta maxaad khilaaf ku abuuraysaa sidii in problem kiyo leh madaxweyne ku xigeenka ka dambeeyay jabhadaha maxay haytay gobolka awda ka jira jabhada caare iyo jabhada awdal ka asaasanba xilligii musabbi xubbi taariikhda sheegaysa inay asaasbeen madaxweynaha xilliga joogun baan waxaan ku qormayaan siyaad baramiya wax la yiraahdo dictatorkii waxa sameeyay lama yiraahdo jabhadii bariga joogay waxa sameeyay ya waxaan dhageystay waraysi bixiyay wasiirka arrimaha gudaha ugu xoog weynaa barigaas Axmed Salmaan Cabdallah Axmed Salmaan Dufle oran jiray ayaa la yiri wax ma khaladeen intii aad siyaad bari wasiirka wahayd ها بيقول maxaa kala deen 1900 kan isteetaraadkiina aanu doorasho qabanaabay heedo militariga uu ka wareega talada laga wareego sicib marhawlo saaxib hadiya jeer waadin marka dambe garawshiyo midhan baad bari dambe aan kartoonta sida axsan duflo waxaan u khaladay halka ka daa xisbinimada jabhada ku maxay hatay aad ku shaambadaynayso ka daayay xukuumaddiin waxana oranaysan dadku sidii qofku ardaaga ka soo jeeda un ba ka dambeeyo waxa dawladda looga baahan yahay xaliso taariikhduna waxay goraysaa xilliga uu joogay jabhadaas sameysmeen Axmed Maxamuud Siilay waa kii madaxweynaha laba jabhadood baa jiray labadiiba uu soo afgaray uu xaliyay oo geediro khaatimo madaxweynaha waa halkan keenay orkiilonji SSC-na waa kii soo xareeyay hal xuluushaad noocaas solutions ka sameeyay looga baahan laakiin ma hadee nala meerayso sidoo uu sheegay kolba carrawadka sanadayaasha u tagay nala meerayso oo baahna nala meeraysan waxaan soo gabagabayn lahaa dhalinyarada haniyad jabina inuu ka mid dhalinna qadiyada Soomaaliland ambassadorski Britain noqon doontaan madaxweynayaashii Britain noqon doontaan waan marba la arki doonaa dhalinyaradiina halka marayso kale oo F16ka diyaaradaha la yiraahdo ku duusha hadaynu u dhabaradagnay Soomaaliland waa inaan u laabkacin laakiin hogaamiyahani imika jooga ma filayo kii halka ay gaarsiin lahaa iyo xukuumaddan inay tahay ayna waxaan ka baryeynaa inaynu guuleysano qarankeenna aynu ka midho dhalno guulad maxamed aadan guulad cunaabi telefishinka saab Hargeysa